kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa shaqada ka ciirisay Antonio Conte iyadoo iminka ay si rasmi ah ugu dhawaaqday in Maurizio Sarri uu yahay tababaraha hogaamin doona kooxda lagu naanayso Bluega ee Chelsea. macalinka Napoli ayaa Blues qalinka ugu duugay heshiis dhan 3 sano. haddaba waa kuma Maurizio Sarri? magaciisa oo buuxa waa Maurizio Sarri. wuxuu dhashay 10 January 1959 taa oo ka dhigan inay da'diisu ay tahay 59 sano. wuxuu ku dhashay magaalada Napoli ee dhaca wadanka Talyaaniga. dhererkiisu waa 1.85 mitir oo u dhigan 6 feet iyo 1 in. 59 jirkani ma lahan taariikh ciyaareed oo laga sheekay karo oo wiligiisa uma ciyaareen kooxo waaweyn, kaliya wuxuu u soo ciyaaray kooxo xaafadaha ka dhisan. wuxuu markii ugu horeysay howsha ka bilaabay shaqada dhismayaasha kahor intuu uusan u weecanin waaxda bangiyada. goobaha uu macalinka reer Talyaani ka xamaalo jira ayaa ka mid ah magaalada London, Zurich iyo Luxembourg. waa kuwee kooxu uu soo leeliyay macalin Sarri. markuu uu 40 jir ahaa wuxuu ka tagay shaqada bangiga isagoona qabtay xilka koox yar ee lagu magacaabi jiray Ticolottio. wuxuu sidoo kale guul la gaaray kooxaha yaryar ee kala ah Zanzovin iyo kooxda kale ee lagu magacaabo Zangovinicius. wuxuu markii dambe qabtay kooxda lagu magacaabo Baskara ee ka ciyaari jirtay xilligaasi horyaalka Serie B-da. inkastoo uu ku dhibaatooday kooxaha heerka hoose ee horyaalka Talyaaniga, misna kubadiisa weerarka ku dhisneed ayaa soo jiidatay kooxda Napoli oo sanadkii labaad uu keenay horyaalka Serie A markuu qabanayana ay ku jirtay horyaalka heerka labaad. 3 sano kadib wuxuu majraha u qabtay kooxda Napoli oo gaarsiiyay heer aad u sareeya. xilli ciyaareedkii ugu horeeyay ee gegada Stadio San Paolo wuxuu Napoli ku hogaamiyay in ay soo gasho kaalinta labaad ee horyaalka Serie A. waa xilligaas la xasuustaa inay ku guuleysatay horyaalka Serie A kooxda Juventus. xilli ciyaareedkii la soo dhaafay kooxda Napoli ayaa inta badan hogaaminaysa horyaalka Talyaaniga, balse nasiib xumo Juventus ayaa ugu dambeyn 4 dhibcood ugu qaaday kooxda Napoli oo xilligaasi hogaaminayay macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri. Sarri waa macalin aad u caba sigaarka ama secretka. weeryahanka kooxda Napoli Martinez ayaa sheegay in Sarri ugu yaraan maalinkuu cabi jiray 5 baakadood oo sigaar ah. tababarka iyo xitaa garoonka ayuu Sarri si joogto ah ugu cabi jiray, taa oo xitaa dhalisay in kooxda reer Germany RB Leipzig ee meel gaar ah u dhisto Sarri si uu sigaarka ugu cabo. mar ay Napoli soo booqatay garoonka ay ku ciyaarto kooxda RB Leipzig, kulan ciyaareed u dhaxeeyay labadani kooxood ka oo ka tirsanaa tartanka European League. haddaba Chelsea ayaa malaha iminka loogu fadhiyaa inay meel gaar ah u dhisto macalinkeeda cusub si uu sigaarka ugu cabo. Maurizio Sarri wuxuu soo hogaamiyay kooxo badan waayihiisa. waxaa ka mid ahaa Baskara, Arezzo, Avellino, Hellas Verona, Borgognonians, Alexandrias, Zorentian, Empoli, Napoli. balse markaan sanadkani 2018 wuxuu hogaami doonaa kooxda kubadda cagta Chelsea taa oo ka xamaalata horyaalka Premier League. waxaa sheekadani qalinka u qaatay Cabdisamed Maxamed Xasan Balagyari oo ah qoraa wax ka qora arrimaha ciyaaraha kana mid ah Goal FM.net.